بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إلهي أنت مسلمين حفظك أرهان أمة الصومالية من والبئي جوكتو إن شاء الله بإذن الله الكريم. إن أرهان سبورتيga Soomaalida meel kasta ay joogto adduunka Ilaahay barwaaqeeyo. maanta waxaa Somali Sports Legends noogu casuuman Legend of the Legend Maxamed Sheekh Muuse holaasana loo yaqaano Somali Fruit magaciisu muxuu ahaa haddana ya Somali Turkish Somali Somali yes okay ani Somali Turkish ku arkay oo Somali Fruit ma sha Allah asaga taariikhdiisu noogu sheekeen doono maxamed sheekh waa ku soo dhaweynay bal taariikhdaada ku bilaaw dhalashadaada iyo meesha ku dhalatay iyo meesha ka soo bilaa ilaa iyo heerka ay ka gaartay ilaa heerka maanta aad taagan tahay qofku baaragaranana male welcome your history gaada Assalamu alaykum warkor waa salaamintii dhammaan Legends kubadda kolayga khaas ahaan walaalkay afkool doctorka inkastoo aan ka weynahay meesha da'ba soo baxaysa hadda da'diba meeshan lagu sheegi doonaa aniga horta Maxamed Sheekh Muuse waxaan ku dhashay magaalada Wardheer oo kamid ah deegaanka Soomaalida ama Soomaalida degmada Wardheer laakiin anoon wiil yar baan ka yimid 4 jir mise 5 jir baan ahaa Muqdisho aan imid sanadka aad dhalatay ka reeban sanadkan dhashay 1960kii waaye laakiin wax badan la iska jajaray alxamdulillah waxaan ku barbaaray degmada Waaberi via Liberia halkaasoon muddo aan deganeyn waxaan ku bilaabay dugsi quraan ceelka Cali Boolay ninkasan meeshu yaqaanaba waa dugsi wuxuu ahaa masaajidka Cali Boolay halkaasaan xaafadda via Liberia degmada Waaberi waxaana ahaa dhalinyaradii nasiibka yeelatay oo dugsiga hoose dhexe degmada Waaberi kusoo bilaabay dugsiga dhexe waxaan ka dhigtay Waaberi hoosena waxaan ka dhigtay isla Waaberi kadibna waxaan u guurnay degmada Hodan halkaasoo alxamdulillah aan ka bilaabay kubadda kolayga basketballka dugsiga degmada Hodan waxaana nasiib u yeeshay nin kusoo barbaaray xaafadda Hodan xaafadda kaasoo barbaaray masaajidka Sheekh Cali Suufi dhinaca shir kale laakiin degmada Hodan ilaahay ha u naxariisto aabahay hooyadaba labadaba way iga hooseeyaan nasiib wanaag baha kubadda kolayga maana ahayn laakiinse waxaan ku barbaaray xaafadda Hodan oo inta badan sportska aan meel fiican ka gaaray degmada Hodan waxaan ahaa dhalinyaradii nasiibka u yeelatay jiilkii hore kubadda kolayga dugsiga sare Banaadir baan ka baxay kadibna naadiga aan ku biiray horta nasiib daro degmadii Hodan waxaan ahayn wiilashii yaryaraa oo kusoo barbaaray degmada Hodan haddana alxamdulillah waa nool yahaan filayaa nin aad iyo aad aan markasta u sheegay Charles la oran jiraan aruuriya anagoo yaryar haddaad maqasheen ciyaartoydii sahan waxay ahaayeen gruubkaygii waxayna ahayn gruub yar oo mini kubadda kolayga ah ku bilaabay degmada Hodan nasiib wanaag anigoo 12 jir ah ayuu gacanta igu dhigay Charlesna markaan 15 ka gaaray baan nin waxaan ahaa degmadan ku barbaaray Banaadir sare jiimkooda iyo degmada Hodan halkaasoo generation qurux badan inaga horeeyeen annaga sidii raggii hore oo soo maray kubadda kolayga Soomaaliyeed waxaana ka mid noqday nasiib wanaagka haddana juniorisk baa la bilaabay 1975 laakiin nasiib daro ana caafimaadka waa isoo oriyeen nin caato qambo baa ahaa waxay dhaheen saaxiib liib baa tahay wax aad meel gaari kartidna ma leh nin aad iyo aad macallin u ahaa markaas caafimaadka wuxuu yiri niyahow nin mustaqbal ku leh baa tahay laakiin nin yar baa tahay wii diiday
caafimaadkii way yeeriyeen kadibna waxaan aaday ciyaarihii gobolada 75-4 waxaan aaday degmadii gobolka Baydhabo oo dhalinyaradii gobolka Banaadir waa la ii yeeray laakiinse maana jeclaysan aniga waxaan markiiba aaday gobolka Baydhabo gobolkaas Baydhabaan training la bilaabay dhalinyaro badan baan ka xusi karaa halkan aan iskuulood ahayn sida doctorka Amar Bile iyo macallinkii aniga iyo markaas gobolka wadaay David hadda xamar buu joogaa nasiibana gobolkii ragid xushay baan noqday laakiinse waxaa dib ii dacweeyay oo hadal ka soo jeediyay gobolka Banaadir markaasna xasaab shira inuu haystaan filaya ciyaarihii dhaxda iyagoo maraya waa la ii diiday nasiib wanaag taariikhdana horta hore halkaasaan kasoo bilaabay aniga laakiin nin ku barbaaray baan ahaa degmada Waaberi iyo degmada Hodan degmada Waaberina nasiib wanaag degmadaas waxaa joogay markaas raggii ciyaal orfanadii hore oo waxaa u dhowaa meeshii orfano niman aad iyo aad aan ka xusi karo sida Cumar Ringo Charles Cumar Ringo iyo jaamac Sarhaan Dheere Cali Faarax Siyaad dhalinyaradii hore Soomaalita ah ayaa intooda badan waxay ka yimaadeen maadaama ay lahayd orfano meel ay ku xareysan yihiin dhalinyarada agoonta ah sida Tarzan oo kale nasiib wanaag alxamdulillah aniga bilawgeygii iyo taariikhdeydaba waxaan aniga ahaa nin kusoo barbaaray ku aanbaxay degmada Hodan waxaana nasiib u yeeshay inay degmooyinka la sameeyay minigaas aniga Cabdiraxmaan Cali Muuse Dheere Ibrahim Badiyo waa la badnaa qoladaas oo dhan sahan team la dhahayo tageen aniga markaan taariikhdaas bilawgeyga waxaana ciyaarnay ciyaarihii degmada annaga Shangani Xamarweyne iyo Bondere waxaana ahayn the best team isaan ahayn markaas annaga degmada Hodan marka teamkii degmada Hodan nasiib wanaag waxaana deganaa areadooda oo ku noolaayeen teamkii la oran jiray Jenya oo naadigii shantii walaalaha aniga aan u bixiyay aniga gacanta waxa igu soo dhigay marka nina aad iyo aad u xusi karo oo Saciid Qorsheer uu kamid yahay Axmed Xaaji Nuur Maxamuud Balog dhinaca Soomaalitaana aniga waxa isoo barbaariyay nin markaan naadiga Soomaali Texas baan aaday kadib gobolkii ma ciyaaray oo gobolka Banaadir laakiin friends game aan la ciyaarnay gobolka Banaadir waana ka badinay markaas waxaan filayaa way diideen alxaasi Soomaali Texas baan aniga marka qaadatay waxaana u sabab ahaa Burhaan Xaaji Yuusuf nin la oran jiray oo Soomaali Texas kabtankooda ahaa Xasan Macalin joogay waxaa joogay Ciise Dheere joogay dhalinyaro talenti ah bay ahaayeen Cali Shiina joogay Bashiir Gurey baa joogay nasiib wanaag macalinkaas macalin fiican oo hadda Cali baa la dhahaa wuxuu joogaa Muqdisho wadaad buu noqday Soomaali Texas gabdhihii bas ay rabteen annaga waxaa la yiri saaxiibayaal galbada Soomaalita Andriana markay inji baa soo dalbatay horta Axmed Carab Allah yarxama ayaa ii yeertay Axmed Carabna ma u suurtoobin inaan teamka waa la alaminteeyay dhalinyaradiisu dhisan injiyo dhisan waxaan ka xusi karaa Shiina Guhaado one of the best ahaa markaas laakiin aniga anaa ka tagay Andriana marka gacanta igu dhigay Soomaalitaayoo dhisan ay joogaan macalin Sheekh Nuura isku team ahaan Soomaalitaayoo dhisan oo team dhisan ah ay joogaan dadkii hore ayaan ku soo gaaray asadaan ku soo gaaray Sajentan ku soo gaaray RK macalin noqday Sajentan ku soo gaaray anaa marka kabtan u noqday la iga dhigay nin wiil gobolna aan ciyaaray degmana ciyaaray bes aliyari teamkii kabtan u noqo kadibna raggii odilba way baxeen anaa marka teamkii Soomaalita dhismaheedii la igu bilaabay marka waxa yimid macalin Sheekh Nuuraan ugu tagay
cali xasan mahdi oo one of the best shooters kamid ahaa markaas soomaalida waxay rabaan ha sheegaan macalin sheekh nuure one of the best shooters ahaa bashir gurey one of the best shooters team waxaan imid ninkii kubadda loo gariyo ilaahu mugafa la oran jiray meena gafa jirin ilaa amarkiis burhaan xaaji yuusuf ayaa aniga hortaray dhiirigelinta ugu horeysay igu soo qabtay shugul salaxaan yar dhahaano hadda doctor of Virginia degan aniga waa nasiib badnaa degmadii hodan oo dhisneed oo garabna iga siiyey ninka gees la dhahayay iyo maxamed balooga ah oo axmed xaaji nuur oo 4 baloog iyo guryaheena u dhaxeeyeen ayaa anigoo nin yar ah igu soo dhiirigeliyey kadibna naadiga sidaasaan ku noqday waxaanan ahaa kabtankii ugu dambeeyey Soomaalita ilaa amarkiis waa la dhisay Somali Fruit ayaa goboladii iyo degmooyinkii Somali Fruit aan marka loo bixiyay Soomaalitaadii waa laga tagay Somali Fruit Abbi ayaa joogay Etob one of the best Burci ayaa joogay one of the best team dhisan anigana sababta u ahaa anana kabtanka u ahaa laakiin aniga family aan ka dhashay sportska waxay u arkayaan waxti aan qiimo ku fadhin nin walaalkii hadda dhowr family qurux badan baa aniga soo maray niman walaaladii oo siman ahaa bangiyada ka wada shaqeynayay oo saraakiil sare Soomaaliya ka wada ahaayeen nin kastaba igu dhiirigelinayay oo ruux barashadaada dib bal taariikhdeeda way dheer tahay oo aniga waa nasiib badnaa nimankan laga hadlayo aniga waxaan 3 jiil ama 4 jiil waan ka sheekeyn karaa aniga maxamed ahaan waxaan ka sheekeyn karaa ninkii dhalinyaro badan oo nasiib ah oo milishibi ahaayeen ayaa jiray oo aniga soo garab qabtay laftigiis ninka la oranayo Cumar Ringo kale Cumar Ringo one of the best basketball players ayuu kamid ahaa milishibi bal ka waran ay joogeen sarxaan dheere Cumar Ringo ninka la oranayo Abdalla Shiino raggaas bal ka waran Ali Usman bal ka waran nasiib Cumar Ringo aniga aad ii jeclaaday oo yaroniyo waxbarashadaada iyo sportska ku dambeeyo waxbarashadaada laakiin nasiib waxaan ku lahaa ninkii ugu dambeeyay oo la ciyaaray baan ahaa aniga arkay Sajante iyo ninka Tarzan waa ninka quro yiri niyahow kabtankan Soomaalita adigan kaaga tagnay asad oo kala oo nin the one of the bestest teams marka laga hadlayo berigaas waa Kenya iyo Soomaalita iyo garoonkaas loo firaaqayn jiray milishibi saddexdaas ay ahaayeen jiilkii dambaan soo galnay marka ani nasiib wanaag jiilkii dambaan ka mid noqday waxaana nasiib aniga aan u yeeshay ani maxamed ah degmadan hodan oo teamka basketballka banaadir sare ayaan anaga wuxuu ahaa academic waxaan ku tilmaami karo all Somali ka soo qayb jiilkii dambaa yimid raggii hore tagay Shiino Gohad way baxeen dhalinyaradii badan inta Suusan dhalinyaro badan baa baxay madbacad oo kale afwi Cabdullaahi Xuseen Gudlaan ka xusaya aniga aan la galay Saciid Qorsheed iyo laftigooda ciyaarba iyagoo markaas dhoofaya ani garoon baan la galay laakiin bintigan ahaa Cumar Andriano uu ii diiday wuxuu yiri ni yar baa tahay naadigan adaa ku dambeynaya adiga laga rabaa leaderka inaad halkaas gacanta ku haysatay waana mahad oo de halkaas aniga degmada hodan baan ku soo barbaaray iyo waa bari Via Liberia ninka hadda wariyaasha direeyo kale daandureeyo kale agma dhigayo kale ninka la oranayo Allah yarhamo la cooko kale Abdisalaan haddana nasbal ka waran markaas goboladiina waa la ciyaari jiray waxaana jirtay degmooyinka waxaa annagana soo saaray laanlaantii degmada hodan could you believe it in la kala xuli waaye teamka degmada hodan yaa la qaataa oo teamka degmada xaafadda lagu daraa sababta 60 ciyaartooy kala ku soo wada baxay
degmada hodan isla markaasna jimka ku yaala banaadir sare ayaa ahaa silsilada akademiga sportiska Soomaaliyeed dadkii ka soo baxay waa jiraan degmooyinka Boondheer oo kale Shangaani iyo Xamarweyne iyo inay lahaayeen tiimam aad shibis iyo wali shibis bal ka waran generationkaas annaga nasiib wanaag annaga Soomaalida 2076kii marka aniga waxaan ku beeray Somali Tex waa la baabiyey saa ugu beeray Somali Fruit halkaasaan ka mid noqday national teamkana waxaan annaga nasiib un lahayn waqti aad u qurux badan jiilkii horaa baxay jiilkii dambe taariikhda Soomaaliya ninkii rabo suu rabaa ka sheega annaga waxaan nasiib u yeelanay jiilkii hore baxay oo taariikhdooda meesha taalay iyo jiilkii dambe naadi kastoo Soomaaliya ku yaalay qiimaha waxaana soo saaray degmade oo laanlaantii kadib Soomaalitaadii anaa kabtan noqday halkii baan buildings la sameeyey Cabdi Cumar Cabdiqaadir Gariweyne Ducaale nink Burci waxaan ciyaartooyda maqlaysid oo idil anaa sabab u ahaa sababta teamka Cabdi Cumar iyo 15 May iyo markii Cabdiqaadir Gariweyne iyo aniga u sabab ahaa Ali Yusuf Bashir Fokis ay wada dhasheen Ciise Yare Muude yar hadda Virginia joogo Ducaale group waxaa soo baxay kubadda idib anaan dhaqaajiya ka dhacday waxaana tababarana soo bar anaga laba tababaraale laba macallimiin baan soo maray John iyo Tarabina waa ninka hadda Olympic haysta markii arkay ka fadhiistay ay ka wada tageen aan ka hadlaya marka taariikhdeedu way dheer tahay waana nin ilaa haddana aniga wali basketballka aan ku dhex jiraa macallin baan ku noqday 16 sano waxaan ku noolaa Qatar alxamdulillah maanta back to Canada intaan Canada joogana seminaaro badan aan ka qaatay Europe aan ka qaatay Asia aan ka qaatay haddana I back to Edmonton academic baan shakhsiyan u leeyahay oo pro basketball skill academic la yiraahdo taariikhdeeda way dheer tahay walaalkiis afkuul doctore laakiinse taariikhda been ma sheegayso naadi kastaba nin leader baa joogay national teamkana Artin Duran top biosa annaga naxulay degmada hodan nala ciyaarsiin jiray ninkii ogbay ama maqlayba haddaada maqlayna hadda idin sheegaya annagoo degmada hodana banaadir sare ay ku xareysan yihiin national teamka oo top bios u wada ayaan la almiintayn jirnay oo naga faa'iideysan jiray waana yaryareen aniga jilcu laba walaal wiilal dhalay oo kale Muuse Dheere Cabdiraxmaan Cali meel ay ku kala dambeeyaan ma garanaya dhalinyaradaas degmooyinkana naadiyada Soomaaliyana naadiga Inchi oo kale iyo naadigan Horseed oo kale iyo anigana bal ka waran aniga gurigeena wuxuu ka dambeeyay naadiga Horseed practice aan la qaadanaa Horseed banaadirna waa ii dhowaa waxaana ahaa ninka la yiri war naadiga Horseed muu ka tirsan yahay mis Soomaalita buu ka tirsan yahay iyo banaadir sare oo annaga aan furaha iska dhaafay annaga maamulan jirnay niman jiilkii dambana wiilal yaryar oo dhismeen sida Cumar Baarajab iyo groupkooda yimaadeen oo annagana isku soo gaarnay Maxamed Geedi Santuri Maxamed Maxamuud Jaamac kale iyo Maxamed Faarax Qamdi oo aniga aan isku dugsiga dhexe ilaa dugsiga sare dugsiga dhexe markaan ka wada baxnay dibadahan meelo kala aadnay Maxamed Maxamuud one of the best basketball players junior dhismatay markaas laakiin Soomaalita creatorkeeda ama soo dhisideeda waxaana annagana nasiib ku lahayn Fantoni nin la oran jiray Soomaalita ayaa naadiga maamuli jiray
naadi kaas Itaaliya gabdho iyo wiilalna waa dhisneen ani halkaasaan taariikhdeeda way aad u dheer tahay heer national teamna markaan gaaray alxamdulillah nin geel raaci jiro la yiri kubad ciyaar maxaa filaysiin marka geeliina kubada ka dambeysay alxamdulillah geel jiraan iska ahayn aniga xamar waxaa imid anoo 2 goob wata ma fahamteen macallin baan noqday 2084 kii gobolka Baydhabo gabdhii wiilal anaa waday halkaasna kadibna national team Soomaaliya waxaan ku biiray aniga oo ninkan Andriano ninkii Andriano la dhihi jiray uu soo dhisay macallimiin badan oo national team ka soo maray Soomaalidana macallimiin badan baa jiray oo naadiyada joogeen Serbia kale aymis jireen oo ninka diray la dhahay jiray group aad u dhisan ahaayeen horseed caafimaadka team adag u lahaa waxool dad dhisan bay ahaayeen horta waa la kala dambeeyay jiil waxaa jiray anaga Soomaali aan wali laga hadlin waan dhageystay barnaamijkan quruxda badan Cabdirashiid Plastic iyo jiil waxaa jiray markay baxeen qoladii la oran jiray Kenya bedelay sida marka ciyaarihii jaamacadda Carabta aniga waxaan ka mid ahaa ciyaartoydii jaamacadda Carabta loo yeeray laakiin se nasiib wanaag macalinkaasi wuu jeclaa sababta aan friends game-kii ugu dambeeyay annaga la ciyaarnay annagoona la xulay dhibcayarna way nooga badiyeen laakiin annaga Soomaaliya waxaa horumariyay kubaddeeda kooxda Artan Duran ninkaasaa kubadda inteena macallimiinta noqotayna aniga aan ka xusi karo macallin marka la dhahayo taariikhda ruux kastaba ka sheego waana dhageystay Umar Barajab Abu Kurshiran waan dhageystay macallin na dhisay dhinaca basketballka coachnimo in la noqdo xulayna ciyaartooyda u dhiibana waraaqo Artan Duran oo ahaa aniga waa la ii yeeray markii dambe laakiin nasiib wanaag familiga dhinacooda ii diideen sababtoo ah aragtidooda si kale u muuqatay laakiin aniga mana istusin waana ka tagayba anagoo ku jiray 18 ugu dambeeyaan ku jiray marka ciyaarahaas Carabta oo isku diyaarinayay 18 ugu dambeeyay laakiin se aniga ana ka baxay sababtoo naadigeena Fantoni baa maamulka nin aad u qiimo badan haystay wuxuu yiri saaxiibayaal waxbarashadiina wata waxbarashadana markaas iska leexanay anyway taariikhdeeda aad u dheertay afkool waa nin nasiib badan ahay wixii aan jeclaa baan ku dhex jiraa oon soo ciyaaray oon ku barbaaray oo magac ku yeeshay maantana aan ilaahay ugu mahadinayo Alif Araxsiyaal ninay dhahaana one of the best Somali national team kii hore iyo kii dambaba ku jiray ninkaas waa yiri Soomaaliyana wuxuu yiri waa nasiib badnaayo yiri aniga kubadda kolayga magac iyo sumcad iyo qiimaba ii yeeshay naadiyadan Soomaaliya jiray naadiyo challenge ka dhaxayn jiray waxaan filayaa 14 naadi inaan ahayn haddaan khaldaneen ama 12 naadi sababtoo ah naadi kasba naadi kale la challenge gareynayay waana ognahay Soomaali basketballkeeda ciyaartooydii nin kasta levelkeeda hadday dhacday national teamka taas waa gaar laakiin nin kastaba leader inuu ahaa sida aan ka dhageystay ninka walaalkay Cabdi Xalwo oo ku ekaaday hadalkaas bal fiiri yiri naadi kastaba leader baa joogay ma garatay marka taariikhdeeda afkool way dheer tahay walaalkiis aad iyo aad bay u dheer tahay waxaana ilaahay ugu mahad celinayaa maanta oo caafimaad qaba waana ku dhex jira aniga professional coach skill coach baan ahay I'm a member of the high level coacheska aan ku jiraa nicmaan ku jiraa walaalkiis waana ku mahadsantahay taariikhdeeda kama sheekin karaa
degmada hodan baana ka sheekeyn karin wax kale iska dhaaf waana ku mahadsantahay aad iyo aad aan kaaga mahad celinayaa sidii sharafta leh iyo taariikhdaada dheer oo meeshan lagu soo koobi karin laakiin intii haddeertaan aad noo soo koobtay ayaan maanta alxamdulillah aan ka dherki karin waxaa ilaahay mahadiisa inaan 70gii aad soo fiirsatay qaybna aad kasoo dheeshay 80gana ilaa iyo 85 86 inaad soo gaartay aan jeclahay alxamdulillah aniga waa ku fiirsaday marka laba qaybood markaan u kala bixino tarsan iyo waa ka hadashay iyo waqtigoodii magaciis maxaa hataa Ivan Shash inuu Bruni dheeli jiray basketball oo dheeli jiray marka magaciis muxuu ahaa waqtigaas aad iyo aad loo xusaa marka loo fiiriyo 80th-kii iyo 90 iyo maarkano 70th-kii fanka waxa u badnaay sportigii awoodii iyo haygii waxa u badnaay 1970gii 70th-kii u badnaay kolba maadaama adaana la sheer gareynaysid marka arintaas ma kula tahay technique marka la dhahayo iyo xogaa ability marka la dhahayo dadka 80gii xogaa ku leh laakiin marka la dhahayo farsamaan ka hadlaa laakiin marka la dhahayo high basketball iyo dhirirkii iyo xoogii iyo teamkii iyo ma fahmino everything ma arkano magaciis maxaa dadka hore ku leh intaas ma aaminsan tahay adiga absolutely waan ka hadli karaaba because waan taagnaa marka ay national teamkii dadkii hore lama heli karo generationkaasna marka laga hadlayo big mans iyo shooting guard iyo power forward iyo laga tilmaamayo niman dhisan ahaayeen ninka ugu gaaban buu ahaaba hadaanan taariikhda dib markaan ugu noqdo aan taariikhaha dib u celin 664 nimankan aan ka hadlaa Cumar Ringi iyo aan ka sheegayo Cabdulashiin iyo Saciid Qolsheer iyo markaan ka hadlaayo national teamkaas macallin Sheekh Nuur iyo gaad marka laga hadlaayo dhismaha teamka nimankaas levelkooda maba la gaari karo Africa iyo magacan iyo aniga waxaan taariikhdaas waa in la sheer garan karaa Kareem Abdi Jabbar barnaamijku ka hadlay in Africa ayuu ku tilmaamay one of the best barisamaadkii taas waa in la sheer garan doonaa marka aan tagno yiri 77kii Soomaaliya waa markay yimaadeen wuxuu yiri niman aan kala garan waayay kooda gaadka iyo power forward kooda iyo kooda power forward kooda u kala tilmaami waayay sababtoo ah halkaas waxa ku cad inaan ka dhisneen xagga farsamada laakiin se nasiib wanaag generation ka dambeeyay si fiican afkool walaaladana waa wada dhageysanaa generationka ugu fagaa oo kubadda kolayga ku dhex jiray 4 years waay kan ugu dheerna waa 12 sano sida aan ka tilmaami karo Cumar Baarajab iyo Abukar Shiin iyo Axmed Daahir Axmed nimanka ugu dheero national teamka ku raagay Bashir Fokis yes asagana iyo Axmed Muuse iyo Qardaas iyo laakiin nin maanta Soomaaliya wada dhahayo aniga 12 sano soo ciyaaray national teamkaas waxaan filayaa ninka ugu dheer oo muddo ku dhex jiray Abukar Shiinan waay Cumar Baarajab waa looga horeeyay Abukar laakiin se national team as a team ninka ugu badan kasoo qaad markuu Cabdullaahi Xuseen Gadle ilaahay naxariistan Allah siiyo qabrigana Allah u nuuriyo uu qadar tagay qadar waxa iskugu timid si fiican one of the best basketball Somalia Sarhan Ali Farah Jerry qadar ilaahu iga dhaaf ilaa banigaad Bashir Fokis waxay yimaadeen one of the best Cabdullaahi Xuseen Gadle. Could you believe it? Abdulashiin. Could you believe it? Markaas qadar national team kooda dhisan. Aniga kula hadlay maalintan tagay 1983 ayaan tagay qadar. Oo ninka aniga iga xamar igu arkay ciyaarteeda arkay
وعبد الشين بالكورن بعد كبد كل قيمة هيدا كل شيء جاي يمون أقون عبد الشين لما عيارن أنيجا حمرو يمد فصح بكو يمد السجا مركز وعياره يو السجا أنيجا قدر وسببها هنا إماده مركا يمدنا لبجو ساكفر هنا جامعة عادي هنا كلاب عيارسد أنيجا تدكي جامعة عادي وجامعة تيم كود وعياره بعناها كتبنا كلاب كاس ستلة بها يا إقاتي لكن نسيبوناك أنيجا أحبرشة إذا كسيبتي كتبنا 85 83 أنيجا 80 81 82 national team كأها 83 ليجا صاري تاريخ الصومالي الملك سنوات الله مركب وحن كهلا جنريشن كان كهلا جنريشن كاس إنشي قرأ لحظة أقوه الرئيس وإنشي شينكو هذا كجر 66 64 65 63 وده هايا من شيء بين أساسي هايا هرتادو كله نحلو one of the best post aha Somali taariikh أنا ما ودي جيستي واحد بدنا كده جيسنا هاي لقاها الله باور فورورد كوقف في عمبوها هير ناشونال تيم نمو قاري نور دير جراد الله يرحمه one of the best Somali basketball وها anyway I was there one of the you name it that one of the best anyway technical yes كوي generation كتنبو سببتها معلم بانو يميت روحا مركو دحقلا باسكتبول كو كهدي كرا مركا معلمينتي برقاس جوغينا وحي الربائنا تاريخ الصومالي دبقوا عليه عبد الرحمن ومعلنكي أها بدأ كان الديد عبد الرزاق وهذا تورنتو جوغو وأسجنا اللودي بي ناديك من بعد نمان سعيد قرشير عبد الدير جروب كيجين يجانا دي one of the فهم ككبدو كل جلهاين أيات جوغي تلك على عثمانو كوريجي وريجي معلمة أسجنا فهم سنة لقى ما هالذكر جنريشن كاس جنريشن وحوها نسيب درة دعدي كواليفيكيشن بدن بقاد لهان عربتي كسوقات عياريها عربها أنا وقرون كاتاجنين عراقي تونسي ذا الشيء جاي هذا ده كان عربها ذلك الشيء كان عاي مصر إيه سومالي ليفل كده وماركو أندريان لينكي لتوبيوس أرتون دوران وعربتي تيم كهوري كودن بس كشيء كان ولكن خير الله سي إنك عبد الجليل بلاستيك ومعلنكاس نور الدين علي سعيد وكله one of the best players واي مركا حقيقي لو هذا لقى ما حد ذكره نادي قاعد وحير أنا وحن كهذا يا بلاستيك مركو كشيء كينايو وحوك لجرون واي معلنكاس معلنك نبري واي معلم ماذا أما تكنيكال كي إنه ده بيك أم بوب وحلقة الله بيك أم رولز كي لكشيء كينايو يوروبيان حتى إكاد لا يعني معلنك كيناي بوها معلمينتي الصومالي أنا عبد اللطيف وكلا صومري ومعلم هذا قيمة بدنها وحصومري عبد الدير one of the best أن كتر ما مكر coaches ما قرتي هذانا ديرجلنت لتشجع يارتوي ذا وذا هذا الكي ما قرتي أنا قلت تربية وكلا one of the best جون الله يرحمه one of the best with the inside the training كا outside كبحرير كلها marka generation keen anaga soo gaarnay marka aniga tan rabaa dib inaan wax yar idin ugu noqdo afkool doctor waxa waay maxamed ibrahim walaalo waa ku baryaaya taariikhda Soomaaliya ciyaaraha beer national team ka dhowr qaybood loo baxay fiiriya ciyaaro dugsiyeed ardadii jaamacadaha fiiriya qualification in Africa marka la fiiriyo ninkii ogba ha ogaadaba maanta ninkan ogeeno haddaba ogow Africa Intermar Senegal Central Africa Cameroon bal ka waran inay markay dhahaan Soomaaliya ku soo aadnay
Nigeria, you name is in Africa. Haddana waa tageen nasiib darrada dowlad baa dhisnay, dowlad baa duntay. Central Africa, aniga hadda intaan aniga waxaan ka hadli karaa generation qurux badan markay dhisnaayeen national teamka aniga aan ku jiraan ka dib kugu celinaya. Waxaan ahayn 1980-81 I'm member labadaba. Ma garatay mid macalinaan waxna barayay waa ka baxay, mid anaa iskaga tegay. Kii 83ga diyaar baan ahaa, nasiib darro ilaa hadda sometimes markaan keligay noqdo anaa isweydiiya what caused this one, maxaa ka yimid, maxay ahayd sababtoo ah marka Soomaaliya walaalkiisa hadda Abukarshiina horta macallimo marka la dhahay wax yaraan dib Soomaaliya macallin ahaa in the game decision makers Abukarshiina waa coach na ka ah garoonka dhexdiisa, leader na ah dhinacan horseedna macallim badweyne nin la oran jiray, one of the best coach u ahaa. Laakiin sidaan adduunka hadda seminaaradan la qaadanaya ama meelaha la tegaya ama ninka diplomatka u sameynaya nasiib darro maanayn helin annaga. Anyway, generationkaygan aniga ka soo hadlaya. Generationkaygan marka laga hadlayo hadda fiiri naadi kastaba 3 ama 4 the one of the best. Annaga waxaan ciyaaraya calaamada ayadoo lahayn 3 point dhalin tuureeni. 3 point calaamada ma lahayn markaas. Kadib baa la keenay. Waan taagnaa. Marka 3 generation ba aniga waa joogay. Sababta aniga waxaan ku soo baray degmada Hodan ah silsilada akademiga kubadda koleyga ilaa haddana aan aaminsana meel kale ma aaminsana shakhsiyan. Okay, adoo ku wadatid waxaa la sheegaa inkastoo aanan fiirsanayn kuna soo gaarin 5 Jane la sheegaa 5 Jane horta nasiib u yeesheen hal team inay wada galaan, laakiin 8 la sheegaa oo qaranka ugu jirtay maadaama 12 la iska rabay ama 10 qaranka inta la iska rabay kolba adaa naga taqaanay 12 kale iska rabay 8 markay hal naadi tahay waa adkaanaysaa naadiyaasha kale inay jaanis badan ay yeeshaan ayagoo leader leh team kasta ila leader leh waa ogtahay, laakiin 10 team markay tisan tahay oo 4 team laga rabo 4 qofood min hal qofood ka soo gali karo team 2 ka soo gali karto way adkaanaysaa challenge-ga xaqiisa. Marka ma isleedahay 80s-ki ma dhicin team 3 ka badan lahay sida hadda ma arkano magaciisa Jane markastaba 3 ay lahayd intaan soo arkay horseed laftirkeeda 3 ay lahayd Axmed Daahir iyo Xuseen Dheere iyo marna Bilal ku jiray marna magaciisa waxaa ku jiray Awais Dheere ku jiray aanan dhicinin marka I'm sure markii 83-gi Awais Dheere kuma jirin oo maleena Bilal soo galay I think markasta 3 ku jirto team Africa ku jirto ma ogeen. Marka challenge-gaas iyadoo jiro waxaa kaloo jiro hor waa dhageysatay oo maleynaya marka laga soo qaado the gaarkii hore iyo gaarka hadeertaan adoona kan ugu fiican aan tilmaamaynin ku weydiin doono maxay ku kala duwanayeen supercodes maxay kala ahaayeen ma hayga keenayay waqtigaas ay ka fiicnaayeen mise markano technically hadda fiican ayaad markano suuro gelinaysay laakiin haygaas hadii kuwii dambe ay lahaan lahayn way ka fiicnaan lahaayeen bargaararkii iga waran gaar shooting gaar meel kasta position kasta ka ciyaari kartay bal welcome meeshaas wax yar bal 2 minutes nala share gareebo gaararkii maxaa Afrika dadku ugu horeeyaan anagula tilmaama haddana guusheena way yareed 80s-ka wixii ka dambeeyay. Horta gaar marka la sheegayo naadi kastaba gaar buu lahaa. Aniga 4 qofood ayaan aniga la galay garoon. Abdisi Plastic waa wada ciyaarnay aniga shakhsiyan. Generationkii horena taariikhdooda horaan loo sheegay. Laakiin si aniga jiilkeygii baan ka hadlayaa jiilka aniga aan ku jiray
aniga horta nasiib wanaag Arten Duran baa aniga iga dhigay inaan noqon karo shooting guardna aan noqon karo aniga waxaana ka ciyaaray teamkii Soomaalida hal position kama ciyaaray upper position except 5 baana ka ciyaaray guard waan noqday shooting guard waan noqday laakiin intuu qaybsamo shanta u qaybsamo basketballka midana ka ciyaaray centerka baana tegin aniga waana ka hadli karaa marka aniga generationkayga iyo aniga jiilkayga iyo kale marka aniga garoonka soo galo waxaan aniga teamna leader baa wada oo ku darsaday leadernimada iyo decision maker in the game ka uu sameynayo iyo communicationka teamka aniga shakhsiyan majiilkii Said Qorsheer iyo wixii ka horeeyay meel iga dhig Cabdilshiin iyo groupkaasi Said Qorsheer iyo Ali Usman iyo groupkaas meel iga dhig ani jiilkayga aniga horta waxaan garan la galay kubad soo qaadayo communication ama system ka la dhahayo game-ka nin la mid ah Abdishir Balasigna ma arkin Abukarshina ma arkin Abukarshina kubadda tuu soo qaado ninkuu dhiibayo iyo shaqada soconaysa wuu rid gareenaya Maxamed Aadan Xirsi one of the best hadaad ka durugti waa tuuri jiray mulshudarna wuu ahaa laakiin se asaga teamkiisa asaa wadi oo leader u ahaa Umar Barajab yes is good guard no complain ma jiro laakiin se sida uu annaga aan soo marnay sababtoo ah maanta basketballka waxaan ka hadli karaa macallin baan ahay hadda waxaan ka hadli karaa ninka kubadda qaadaya ninka siinaya ninka screenka sameynaya ama ninkan sida u wada soconaysa waxaan leeyahay nin la mid ah Soomaaliya oo awoodda uu jirkiisa si u dhibi jiray ama u dadaali jiray nin la mid ah Abukarshina ma soo marin Abukarshina one of the best basketball practice aan noqdo aniga Abukarshina one-on-one on every wada ciyaari jin Ahmed Daahir Ahmed asagana one of the best dad waxaan ku tilmaamayaa laacibiin waxa jirta markay leader rabaan in ciyaaraan one-on-one ka jeclaa aniga shakhsiyan one-on-one ka Abukarshina iyo Ahmed Daahir iyo 24 hours waa kan taariikhdana been ma sheegayso heer waxaan gaarnay aniga Ahmed Daahir full court in horseed hadda horseedna mihiya nala daawanayo Abukarshina xaafadiisa aan ugu tagi jiray oo maalin kasta waqtigan firaaqoysheena anigana ixtiraam weyn baan u hayaa asagana saas laakiinse national teamka naadiyada hadda boontigana rabaa dib waa runta Soomaalida marba waxay ku jireen afar ciyaartoy oo la hubo oo kubadda basketballka waa kuwii hore Macallin Sheikh Noor one of the best Ali Shiine Ali Hassan Mahdi one of the best inuu ahaa fiiriya the best asad ana waxaan ka hadlayaa laacibiintii ku soo gaaray laakiinse Soomaali naadi kastaba Soomaalida mar 3-4 markii dambana aniga baa u badnaa 2 mar 3 mar markii dambana iskaba ilooba Abdiqaadir Girweyne mar la ciyaarsiiyay marna waa laga saaray asagana dhinaca gabdhaha Shariifo Cadawar kamid ahayd gabdhihii hore gabdhaha haddaan galno one of the best teams Soomaalida bay ahaayeen reality marka loo hadlo jeeyo iyo waxaan iyo Soomaalida waxay rabaan sheegaan gabdhaha ugu championada Miska Umar iyo marka waxaan ka hadlay ani generation bad nasiib wanaag aan la kulmay waxaan aniga maanta halkan ka cadeynaya maalinta haddii aan heli lahayn management Soomaaliya ama fahamka kubadda koleyga in Africa champion aniga waan ku jiray marka ciyaaraha dhamaadeen ciyaartooyda la kaxeeyo kismaayaan ku jiray
markii Africanka saddexaad aan galeen I'm a member of the team magar kismaayana la gaday waa madan dawlad baa dhisnayd dawlad baa duntay magarta nala kala qaybiyay shacabkii kismaayana ay daawadeen ciyaarahaas quruxda badan anyway walaalkiis afkool waxaan ka hadlayaa macalinta sax best team isaan ahayn magarata anigoo wali sababta maanta markaan macalimada aad darastid waxaa waaya ciyaartoyda inaan team ka soo leeyahay manager assistant coach coach training coach individually wax baa la sheegaa wixii hore hadda abukarshiine marbuu national team ka tagay kadib buu yimid he's been there marka ciyaarihii hadda la qabanayay sawirka aniga aan ku soo diray uu ku jira aniga la iga saaray abukarshiine dalka ma joogin uu ka maqnaa dalka 83 dibaddu jiray marka aniga markaad i weydiisay hadda waxyaabo bounties badan waan dhageystay horta hore nasiib weeri degmada hodan kale hadda Rashidoob oo kale saaxiib kulli waay ma aha nin sportiska annaga dhalinyaradeena markaan maqalno oon rabnay inaan ku dayano volleyball ciyaaraay basketball ciyaaraay soccer ciyaaraay dhaqan wanaagsan oo nala dhaqmaay degmada hodanna annaga waa ku dayan jirnay runta markaan kuu sheego Rashidoob one of the best annaga degmada hodan heer waxaan gaarnay annaga degmada hodan markaan nimaadno asaga aan raadin gurigooda xasuusanahay meeshuu deganaa xasuusanahay shakhsiyadiisa xasuusanahay ma garatay walaalkiis marka aan rabo inaan quantity ku siinayo naadiga badroolka hadda 3 baa kaga jirtay national team waa Qardhaas Axmed Muuse iyo Bashir Fokis bal taariikhda dib hala sawirka hala fiiriyo aniga kama hadlay naadi kastana haddii taariikhda la qori lahaa maanta Soomaaliya macallin kastoo yimaadana dalkaas wuu kala yaqaanay ilaan garoonku imaanayay asagaa duxulanayay asaga wuxuu rabo sameynayay maanta markii dambe waxaa bilaabatay aniga dadkan xaqiiqda in la sheegaa waxaa bilaabay naadi kastaba naadigaas macallinka hadduu yimaado macallinkaas inuu nafsada ciyaartoydaas national teamka halkaas joogta inay u badnaan naadigiisa absolutely 100%. laakiinse haddii hadda qisada yar oo aniga aan rabo inaan shiina guhaado kale aniga shiina guhaad indhahayga waan taagnaa one of the best scorers oo ahaa ilaahayna istaal siiyey inji walaalkiis sida hadda loo sheegayo waa inay kaga jirto 5 ciyaartoy waa inay ahayd walaalkiis afkool taariikhdan waa dheertaa walaalo basketballka Soomaaliya dowladihii carabtoon jirin ayay magac lahayd anigoo ciyaaro Kenya national team kooda wada si fiican ay dhigays ayaa ra'iiska la socda Senegal yiri niyo Soomaaliya tahay Soomaali bana nimankaas waxay naga dhalayeen buu fiir si fiican intaas oo dhibaat Central Africa horta dawlad baa duntay walaalkiis taariikhdaas dib hay celin taariikh waxa waaye managementiga bal ka waran managementigeena ayaa liitay absolutely waana qiraya aniga managementiga waa u soo noqonayna waxaan rabay Cabdilashiin ana hadda waxaan kula soo kulmay Kismaayo 9 bilood aan la joogay Baronin waa la soo ciyaaray waa one of the akhlaaq iyo meel kasta dhinac kasta in kastoo nin weyn uu noqday hadeer laakiin physical hadaa aragtid dadka ay dhigay uma amaleynaysa Cabdilashiin iyo Baarajab maya Cabdilashiin iyo Saciid Qorsheel iyo magaciisa plastic iyo Abukarshiin macallina tahay labadee qaadan lahayd maalinta أنا مرة كل شيء عبد الله شين ما يعني بين ما بيشيء ولا كاركتر هذه معلم حقيقة عبد الله شين because عبد الله شين تاريخ ذا قدر في قدر مركز الشيدة يكجرا كويتنا
TV يا أخي تاريخ يا نجمقن هذا TV يدا سدي لكيني لها Somali ولا كلا بحلها عبد الشين one of the best player in Somali قاعدة وعبد الشين أنيقا بلاستيك yes عبد الشين بلاستيك وش شيء غير سيف عام دقيس man of the كنت يشهد حتى مركز الأرجعي مركز حوت المامي عمر بارك سان أنا لقيستي أبو كرشين إنه بلاستيك عمر بارك إنه شيء أبو كر نيكل أورانا أبتدي بلاستيك قعن تيساهم قعمهن إنه قعن جابينها هم لين وانين قعن دير مركو عيارة لكن سي مركز هاي تيمك ولكن تاريخنا هدي لهنا عربت مركز عياري جامعة عربتها one of the best assistant ليبا كبت وحاقاتي والسيي بلاستيك and the means وحن كان like game كا حديثة one of the scorer أما دقناشها عبد الله حسين قال لي يعني تاريخ ديبها الله النقطة نور الدين علي السعيد عبد الشينا كودا عبد الشينا كودا عبد الله الشين ومركو قبح عبد الله حسين يا وي عبد الله حسين افويني ير اللي يجي لما بعده افويني اوكي افويني اوكي الى ونغو سي كبدو سو قادنايا وحو رب سمينايا لكن نينك كبديس ديسي جري عبد الشين بلاستيك احمد داريس شورينو اها مركز وكبدا سيدي انغا بوزيشن كان كعياري انه كعياري نور الدين علي سعيد معلنكاس انت استعمال جري شنتو استعمال جري ولا يقانا تاريخنا نو تقانا اوكي انت بحو ان waxaa la isku haystaa shooting yaa la isku haystaa maadaama tab shooting Somali history summary aad tahay magaciisa muxuu ahaa qof adiga ka yaabi kolba wuu jiraa ama ka horeey ama kula dheelay ama aad fiirsatay oo mafahmin haba ka horeey hadaa rabtid Moston 70gii dhexdiisa wixii ka dambeeyay ilaa iyo 85 mid of markano magaciisa maxaa 80 aad dheelaysay 10 sano ku dhex jirtay iyo waxa soo fiirsatay top shooter oo waxa jira adiga mentor ku ahaa jiro qofka asii mistilmaama garo asii waa la tilmaami karaa وانا dhihi kartaa aniga qof maanta shooter iga horeey ma jiro oo ma arkano something like that lakin with the respect I'm sure qof walba ma arkano asaga uu iska leexiyay dad mentor u ah ama uu ka horeeyay ama la mid ahay ama qaranka isku la jireen top 3 shooter ever oo adiga ku soo maro bal nala share garay insha Allah bidin la kareem laakiin runta teeda kale waxaan ku sheegaa waxa kugu la jiro meeshan legend of the legend munishibia baaldi ku xaare oo reer baadiyaal ah ogaaska ku jira oo dhahay aniga walaalkay waa salaama marka aad ku salaamo ogaas waa ka qaado maqlaysa artare laba xaafado deganaatay isku xaafadeedan waa bari miya mise hodan waa laba xaafadoodu deganaa magaciis maxaa xaafadda waa bari miya mise hodan waay hodan ay sax miyaan nacam okay marka wuu ku salaamay ka hore salaanta kala qaada ka dambe su'aashina hor u wadanaynaa ay ogaaso waa kaa qaaday ogaaso taariikhdaada haddaan ku soo dhageyso ha ka bixin waxaa jirta marka qalooyinka khatarta ah oo adiga ku jiri kartidaan weydii laakiin kolba ma aqaan wax kala u diyaarsanaa oo maleena hadda wuu ku markana qofka gadaala ka xasuusan kartaa marka insha Allah wax ka hadalna Cabdalla Shiin la dhahay ninkaas the best guard of Somali summer ever waa respect garana waa soo arkay ما شاء الله عبد الكلاسيكو ما شاء الله سعيد قرشيل أبو كرشين بارجب مذوبة و the best Somali summer واي نور الدين علي سعيد also
هذا الهلمان ملأ ما أركنه مجلس إيه تبادلنا سيدا ما أركنه أبو كر سلاب وكلاته دعاء وكلاته أنا قاعد يا ذا نكاس استاكي وحي سؤال وحن كنت ماما أبو كر سل نكان أنا دعاء نكى بني هاروي وكلاته استالكيس exactly سو عيارة إنه عيارة ولي مقتصان وملايا إن كستو وحير وعن كسو جاري أو كتم أن كلا تجني أسجنا لك 83 وحي كتم بيوها هاي مركب محمد شيخ كسعة the best sure ever إلا عشان وجارسين كرتا داربتد لكن top 3 عاد لي جابتي ما دام مشهور وقت رسم سومال وهم قاعدين أكوجرتد أو 1 2 3 ولا ده لكن بل أذيك نفتر كاجدة من تركوي أركي جرتي أدي كرتعاوة مركا على ديلي سيد والله أنا هبل والله هبل هرتر إن لسك قبته وين كاسدان لسك قبنا وانور دماتي welcome نين أشور إنه كل لسك لده هاي أو ما شاء الله هرتر حنكسو جاري دقمة هذا حنكسو جاري نين لده هاي جيس one of the best أنيجا إن كده أيوه كوي جاي أنا the best player ويلي لما جارن وحنربا شور نربا the best شور the best شور كأو أنيجا أن كده ربي إن كده يدا نكاسو مركا أن إميت سومال تكس أن كسو تجينا سومال تا إمينا the best team كنا كبد إن قادنا نينك الشيخ على دهاي one of the best shooter Somalia كان مقفل مركز Somalia وادي كقص بسينا مات نينك Somalia تابعني متعنيك أفر نين وكبدها ده هلام بنقفينين عن لئيمت معالي الشيخ نور على شينا شي قري عنيك عنيك مركز وانكو عصبه Somalia تا يمكن هو leaders Somalia تابي يقول ريا حسب معلنا أنك مركن نوعها one of the best means that's مجرى لاعب مركو هلا يو لو بدأ دقيقة سنة أنا أهان معلش شيخ the best شور إياها best معلش شيخ نور كو secondly first gets guess what see second نكنا see على الشينة على حسب ما هذه one of the best لابد كونه أرد التيم وحان دوني ما مقصود دوني يلا حتى ولا قصد دونا تيم وحان نمت سومالي تا أفرت كونه الاستاجاي على الشينة قبنا ويف وشينا ودلنا أنا قبنا ويف وشينا ودلنا معاني الشيخ نور تيم كده ما بن لاعب كي كلو جرون كوجري وحبه ما أركبه سوريا ده هالكاس أيام كوب اللون لابد سنين هرتر أنيجا إلى كل مي لود كي سومالتانا بلا ير اللي يجري يرتف يعني أسد كان هذا جوجي one of the best شور رسا هاي أوكي أنكسر نقد جد أنيجا لود كيجي ده بدنا شيء جيني لبع عبد الرشيد كهذا كل هذا يا عبد الرشيد كلا أو هذا تورنتو إنه دقيقة فيلا أو جاي لسه مرة وولي لما بعد النقطة مش كلا يا عبد الرشيد ما قاعد سايق مقن سنا وقرن الأهاي ورشيد بسها أنيجي أسجى نور الدين هرتر إن الصومالي وحاجة النقطة إذا بس بلايرز كرام بالس بقوي ما يجري وما بعد إلى هاد سلام ميسيون كدم بيس إيجيا وأمريكا جنريشن كركال الله يادا محمود جامع أيوه MMJ جروبية وحاجة ما وقتها فرايدي دو كل الصوت ملي ماد the best شهور كله ذاتك سير ربنا واركان لود وحاجة أنك أنكسو قارني وده توريف يعني ما قرد لما وكلا عبد القادر جامع موسى one of the best شهور وسواها لكن معجزة وأنك أن لا يار قرون لقالي عبد القادر جامع عبد القادر الشيخ أنا لقالي لكن وكون ريني أو 3 بونتس كنت لقينا أنا كنا توري جرنا لكن عبد القادر
mucjiso wuxuu ku dhigay asoo ordayo dhaqaaqaa buu tuuraay annaga waa inaan creator samaynaa waa inaan position soo soconaa ama waa inaan soo dhaqaaqnaa scream aan sugnaa kubadda ninkan cabdiqaadirna moogta waa gacmada dheeri anyway the best shooter cabdiqaadir sheekha kadib wixii ka dambeeyay aniga 83 ga Soomaaliya ugu dambeysay 85 ga national team kale yiri matagaysa صاحبي الرالي هور كي هور أبوتينا غيري نقول رالي هذا ما يدي إيماني كور المركز أنا قدر أن جوجا جامعة عندي كنا يمد وزير الله يرحمه مرع والي بروفيسور كل الصعودة يعرف فينا عربة أن كعياري وياري وأن كديدي أفوين أنا كديدي شخصيا كشير فوكس أفوين أنا كسب بحن قدر 85 كي أنا وين ديدي because أنا وحي مقتبة because روح بدرين بولها أنا كسومالية I'm a member national team هذا عبد الشيد كان هذا one of the best شيء ولا الكيس يا أخي تاريخ دي بهالونه عبد الرزاق ما شيء هذا عبد الرزاق ده عبد الرزاق عبد الشيد كذا أسجن أو عيارة يجي وحتى تورنتينو عبد الرزاق شغل ما شيء هذا معلم واي عبد الرزاق شكري is good coach عبد الرزاق شكري يعني بين لي سكوت شيء كسومالية نيك أن كم أغلب مركز معلم نقدم بيك أم بوب وعسجا بيك أم بوب والسكريما يا كفاك يا كر هذا يتريجا لتسينا يا ترى كلكم من ملك سان كشيء على نكاس دبل سكريم نيك كم أغلب وعسجا معلمدنا dadka hore waxa la sheegayay nin Axmed Xaaji Nuur ayaa qof walba oo tilmaamay except you waa ilowday amalena iska ilow Axmed Xaaji Nuur ma la gaari karo lugaa markuu laabto waa على خراب أجيب على خراب الله يرحمه أسجن سعودي يجوا يا أخي تاريخ دي بهاي علم ولا له أنا أنت أسوأ اللي كسو قال أحمد حاج نور قرية نجر لا بقرا نور دحين لا بقري هذا هذانا marka anyway maxaa ka xasuustaa magaciisa muxuu ahaa sheekha maadaama aad tiri oo big sure aad tahay oo magac Soomaali history aad ku leedahay oo la xusi doono oo wiligeed la iloobeyn haddana sheekha maxaad wax badan wada ciyaartaan inta aad joogtid especially markano sanaan asaga wax yar uu ka dheelay markay champion ka qaadayeen 8 ilaa 83 inta ka bixayso waa wada joogteen wal ninkaas maxaa ku xasuustaa marka sheekha ciyaaraha wada dheeshaan iyo waxyaabaha mucjisada aan la aragtay oo ninkan waxa uu sameeyay isaaq dheer habeen dhaweeto ka sheegay waxyaabaha wuxuu yiri habeenkaas oo xabadkayga galay yiri mana ka sarmayso yiri sheekha bis waa dhamaatay yiri walaakiin runtii ku sheega annaga badal ciyaareen aan ducaala qaadnay ducaala daanki sameeyay kasaruna waay stadiyoogeen hadda la burburiyay stadiyooga meel la kala fadhiistay badda iyo Soomaalida joornal kana nagu soo qoray aniga Cabdiqaadir Sheekh ninka taariikhda Soomaaliya hayn karana waa Najiib oo jooga magaalada la dhahayo Seattle Washington uu degan yahay ducaalan qaadnay ducaala daan ku sameeyay garoonka dhaxay Cabdiqaadir Gilweynaana qaaday wuxuu naga dhaliyay ma ahaya dalis inta istaagna fast break orodna waa toorna game ka tied way annaga ka horeyna 15 points in soo gaaray 3 points uu naga dhaliyay illa hadda maskaxdeeda way ka bixi laada asaana samaystaya kubadda asaas soo qaatay asaana grade gareysay 101 every week ama laba mar ama saddex mar asaga iyo aniga waxaan tuuriya imaan jirnay niziya la dhihi jiraa 15 October furaha hayn jiray sheekhana taariikhdaas uu la socdaa inuu noo furo aan tuuriya gis samayn jirnay waxaana markaas ku jiray Cabdiqaadir Jaamac asagana saas sababta Cabdiqaadir Jaamac gurigooda u dhawaa dhama
sheekhana maba ka fogeen anyway aniga mucjisadaas ilaa hadda maskaxdeeda horta naadiga Soomaalida wax yar walaalkii anaga horiyaal iyo maana qaadan laakiin naadiyo badan hadda maqlaanba way carari jireen waa la sii yaqaana Soomaali taariikhdeedana nin been ka sheegi kara male marka ugu yaraana saddexaad aan nahay ama afraad aan nahay haddii barigaas la qori lahaa the best scorer maxaa idin ka dhinnaay marka maxaa idin ka dhinnaay oo aad u qaadi wayseen markaan nimaadnaba annaga waxaan horta madbacadda iyo minshibi iyo markaan isla ciyaarayna nin kasta wuu ogyahay Soomaali taariikhdeedana waa la ogyahay aniga Kenya ogahay habeenkay idin la dheelayso bas waxa weeye inay lose gareeyaan ku imaadaan because ilaa markiisa habeenka waa ka burjumay malena wallahi bedroolka la sheegay iyo minshibiyo aniga dhowr mar ay la ciyaartay barbar dhac baan ahayn inta aan la ciyaaray igama badan marna waa ka badan marna way iga badinayeen waa intaan joogay laakiin naadi aniga aan isdhahayay suu kaaga badiyay madbacadda baa arki jiray hal boonti dhakaba ii dhiibay ama horseedo hal boonti ii dhiibaysa meel ay ka keeneen ma aqaanay wadda soo ma aha heer waxaan gaarnay marka shacabka Soomaaliyeed niyo walaalo taariikhda ruux hadda fiiri degmooyinka marka laga hadlayo waxyaabo badan naadiyada Soomaaliya naadi ka soo dhisnaa annaga koob Rabadaan horta laba mar ma qaadnay mid mar qaadnay ma garanayo laakiin Kenya minshibi ama waxool ama dad badan baa hadda fiiriya marka ay weydiinayaan shuurid nin waxaa jira oo hadda ku nool Muqdisho oo Sacuudiga muddo deganaa Cabdi Khaliif la leeyahay one of the best shooters oo ahaa Cabdi Khaliif lodkaas national team ku jiraya ma aha Daawud Burhan Haji Yusuf asaga iyo Shiina Kuhad iyo ay ahaayeen marka naadi kastaba leader marka waxaan ka hadlaa fiiri hadda generation yar waxaa jira monopoly ani markii dambe waxaan ku soo beernay maadaama aan wiila adeer u ahaa wuxuu ciyaari jiray naadiga waxool Xasan Muuse Xasan gobolka Banaadir oo ciyaaray waxool oo ciyaaray reefyaad oo dhan iyo reer Cabdicasiis oo dhan reer Xamarweyn oo dhan niyo sportska Soomaaliya basketball laakiin nin aadan weli magacaabin oo xoogaa waxa jira umaleena inkastoo dadka qofka la iloobi karo ay soo wacay waxa la dhahay ninkaas waa laga tagaa Toore ana ma garanaynin dadka hore waaye nin Xasan Macalin la dhahay ninkaas ka waran Xasan Macalin aniga la ciyaar garoonka la galay Soomaalida Bashiir Macalin oo la dhashay hay aniga iyo kubadda kor ma u qaadi kartaa bas Soomaali tikis aniga ilkaas Bashiir Gurey Ali Shiine Ciise Umar Ciise Burhan Haji Yusuf Xasan Macalin Somalia one of the best imaaraadku ka ciyaar ilaahay hadduu nool yahay inuu dhintay waxaan maqlay inuu dhintay laakiinse imaaraadka hadduu naadi u ciyaaray uu naadi ku noolaa naadi cadaawa dheer oo kale one of the best boss oo hadda Sweden degan oo aniga horta waa nasiib badnaaniyo generationka aniga aan la soo marka ninkaas ka waran ma positionka gelin ninkaas oo maadaama dharkood la soo sheegay adi laakiin Janiskaas aan u yeeshay Isaaq Dheer amaan lid warasay Isaaq Dheer ma ku soo gaarin laakiin adiga ku soo gaartay waa fiirsatay waan la soo ciyaartay garoonkaas kala joognaa is my teammate ay bal ninkaas ka waran sida la iga sheegay iyo ninkaas waa la iloobisay ku dhici kartaa iyo bal arrimahaas ka waran ninkaas wili wax soo sheeqaada ma arkin yes Abdishid soo hadda ma aha ciyaarihii Carabta Abdishid Artin Duran ninku markuu wax sawiray oo system drillska waxa leeyahay Xasan Macalin adiga waxa rabta samee buu dhihi jiray gacantana leaderka Xasan Macalin waa Abdi Balato Nuruddin Ali Said waa cadaawa dheer shantan ku sheegaya aniga shanta ma garatay shantaasaan hadda rabaa inaan ku soo qaado waa 5 stars iyo afweyne
bateriga daciif sii noqonaya saaxiib oo reer baadiinimada korontada gashanaya soo qaatay okay waaya yeah haye ogaaska haye hola sana ka waran ninkaas waa isla soo dheesheene xasuusin ninka wana wada ciyaari jirnay xasuusin taariikhda dib ugu noqon dhawraa way dugsi baan ku wada ciyaari jirnay ku yaalay macaan jaamac waxaa xal u dhisay xabasiri baalki wallahi baan ma ah نعم 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 كود ما maxaa ka xasuustaa maxamed sheekh ogaas horta ogaas anaa gelaayo ogaas ninkii yaqaana scoreku dhalin jiray taariikhdii akhi in la qoraa ficneed horta iskuuladii banaadir sare iyo 15 May iyo iskuuladii markaa dib loo noqdo iyo degmooyinkii absolutely taariikhda Soomaaliya wax badan aan laga shaqeyn sheegayaa absolutely Somalia hadda fiiriya waxoolo kale nin hantulo la dhahay one of the best player waa hantulo heer national team magacay sumcadna ku leh ma garatay ninkan ka hadda ku sheegayo isagana jooga Soomaaliya degana business ka maan iska noqday dhalinyaradan iska shaqaysata ah oo Sacuudiga iyo level ka gaaray Cabdi Khaliif gobolada marka laga yimaado ninkaas gobolka laga soo qaatay Soomaa inkastoo gobolka laga qaatay national team Soomaaliya nin straight to gobola Cabdi Khaliif ku jiray oo la ciyaaray Xaaji Yuusuf iyo adiga waxa ka dambeeyay isaaq dheera asaasay ana macallin ahaa iyo madaxayba ana gobolka macallin u noqday kaydhabo 84 kii keentay Madiina ay ku soo degeen xasuusta absolutely ma garatay laakiin walaalkii hadda dib ii celinaysaa niyo dad waxaa jira garoonkii madbacadda ninkii yaqaan oo geedadka ku yaaleen Shalem Musiona ka dambeeyay garoonkaas ninka soo galay ciyaartooy national team Soomaaliya uu ka sareeyay naxariisna ma jirto soo noqono William best player ma gaarin ilaa 70 ilaa 80 labadaba ka sheekeyn karo oo na soo dheelay labadaba tahay waxaan rabaa gaar shooting guard small forward I'm a big forward labada ka adaaba coach iyo center 5 ka coffee masiibanin waa laga rabaa shantaada qofood laga rabaa who's the goat shantaada qofood Magic Johnson wuu sheegay everybody wuu sheegay Kobe Bryant wuu sheegay Julius Orban wuxuu yiri shanteeda qofood Michael Jordan iyo Magic Johnson iyo kuma jiraan uu yiri lixdameeyadii wax dheelay uu sheegay oo asiga fiirsan jiray marka maadaama labadaba isku taqaanid isaaq dheer maanta 84 wixii ka horeeyay he has no clue wax dheelay wax kale nin iska yarna wuu ahaa marka adiga laakiin maadaama labada soo dheeshay who's your best guard the best shooting guard oo aad gelin leed ama 80 ha dheelo ama 70 ha dheelo whatever it is top 5 Soomaali soo martay oo adiga aad maanta aad dhiilaad shantaas qofood ay safanayso kuwii hore ma geena jeen iyo groupkaas iyo kulli waa ku jirtaa Saciid Qorsheel iyo Cabdalla Shiina iyo Maxson Plastico Baarajab Madow iyo Abuukar Shiina iyo Nuuruddin Cali Saciid todobadaas hal qof oo gaar adiga yaa gaar ku noqon because adiga maanta coach aad tahay you are different than me so yaa qaadan lahayd Cabdalla Shiina ka soo bilaa Saciid Qorsheel everybody ilaa iyo Baarajab iyo Madow ku kan horta hore gaar ahaan Cabdalla Shiina soo qaadanaya Saciid Qorsheel number 1 Saciid Qorsheel
سعيد قرشة عبد العزيز بلاستيك أسجنا ماشي يقول جرا ما شن أنا تيم كدت كوضع يعني كهدلو يا أبو كرشينة مدو بقى يقول حاجة بارجة بقى يقول تنبيه اوكي قارك انا حلقه فود يا قاركو عبد اللشينا نمبر 1 كو عادي اوكي shooting guard who was the best shooting guard ever inkastoo hore u sheegtay laakiin haddana adigaan kaa rabaa shooting guard dhinaca aniga ka tuuri jiray ka tuuraya sheeqaan wataa sheeqa number 2 okay small forward Ahmed Daahir iyo inta la jirtay Ahmed Daahir small forward iyo gis iyo one of the best Americana لما هلي كرا لكن big forward مو أهم من small forward وها is joker واي نكاسين سومالي وعربان بحان joker واي لكن أسيق big forward أنكو حسابين مشاكل ملك small forward نيكا توريا دو أنكا كان بأسيق sometimes مركان ديجر وريا كالا انت كتورتي نيكا يري واي receive and shoot when you receive the ball shoot so ما جري روح اسديارنا يا okay وايا shooting guard نيكاسا كشتي هاي مقعيس محوها big forward power forward نيو عجلتي مركان دادا هورتا دادا كو شيء بحير يقدم ميسا دادا مجر نكودي دادا ندبها يعني نكودي مش شيء كرو because مركان power forward دهديد ويلالي يريرو دمبي horta cabdi xalwa ninkii ruux soo rabaa u yaqaan wax maalina cabdi xalwa meesha geesid asaga ridbaan waa ku qabanaa kubadana waa ku dhalinaa laakiin power forward marka ay weydiisid dhuxulo baan wataa aniga umar dhuxulo ay center cadaawa dheere okay and waa Cabdillashiina waa Markano Mushiqa وماركنو مقعيس مع إساق ماركنو أويس داهية وماركنو جاي لوبن صاحب عبد العزيز بلاستيك جاي لوبن يقول ترميش عبد العزيز بلاستيك قاروا هي عسى عبد اللشين غالتي ما واقعت لك ودعدي اللي قهري لا بعض سوق لا ايش على كرولين سكند يا أفوين من لقبان كهرباء أفوين one of the best shooting guard وراد ما شرطة كيسنا أفويني عبد الله حسين قال لكن waxaa saartay oo hore la isku raacay nin gees la dhahay the best player ever la dhahay waa ka saartay ada shantaad ما كم صار كان gees كيا gaari kar ya gees ka Soomaaliland hadii la isku dar gees waaye muwaalanta adiga okay gees iyo Awees Daahiye iyo Sheekha iyo Cabdillashiina iyo Afweyne ma iyo Cadaawe عداوة عشان لحظة سام وتاني شن شيء وحق صدرت بلاستيك حق صدرت 600 بلاستيك بلاستيك ما معرف يعني كارواي نور الدين علي سعيد نواي كفر بتاع نور الدين هرتر نور الدين علي سعيد سومالي سي وتقانا ما هو شيكت أما يشيء نين ما أنت تيجي شيء أنا جوانا لبلبلوجا يا نين كجرون كيني يراهد وحان بلوجي نور الدين علي سعيد تاريخ ده بينو كشاي باسكتبول وانين ديسيبلين معلن كسو يمادنا اسغا 5 stars كوا Is that true? Yes. One of the ما best. شاء الله ما شاء الله. وانا وانا البلوغا وسوس عنا فريز رو رادينينا. نور الدين علي سعيد نينك ما انت ايجر نينكاس انا بلوغاي. باسكتبول سومالي بينو كشاي. Unbelievable way. Okay, سؤال واحد يرى دي شيء يا مات. نك أرض درون لاعبين توحكوا كل حريجر أبو كشين ويمقلايا عمر بارجل ويمقلايا وأنت أنا جا مركن أرض دوران فول كورت 101 نور الدين علي السعيد نك بدي مجرته فول كورت ما هذا يا هاف كورت يا وفول كورت نيك بدي نور الدين علي السعيد ما جرته راعدي سافي عناد
dhaqaaqiisa fiicnaa wuxuu rabo sameynaya cabdishiid plastic yes wano macalinkaasna macalinka keenay waa ciyaartooyda inuu mar kasta kubadda nin qaadi waaye waa inuu qaadi karaa nin kale ninkan oo kale Arten Duran oo ahaa hadduu qaadi waaye Cumar Baarajab Abukar Shiine big man inuu kubadda soo qaadaa nin kale waa inuu wax akhrin karaa nin kale waa inuu samayn karaa Nuruddin iyo Cabdishiid Plastic ciyaarihii jaamacadda Carabta haddii lahayn lahaa statica afweyne meel iska dhig leader u ahaa Soomaaliya dhan afweyne hadduu kobsha diidi waa la diidi jiray saaxiib Soomaaliya waxa rabaan sheegaan ciyaarihi Carabta hadduu dhaw shaha la cabaya shaha la wada cabaya means leader nimada meesha gaaray Cabdullaahi Xuseen kada ninka gaaray ma jirto Cabdishiidna taariikhdu sheegay run waaye marka dhayeen Sacuudiga tagaan Soomaali siyaasadda ay ku jirtay wuuna og yahay Cabdishiid Plastic ninku yiri waaye macalinkaas Arduran anay waxaan kula kulmay magaalada la oranayay Qadar asoo naadi macaan oo ah naadi Carab markii uu arko gacanta igu dhigay waxna adduun marrabo yar Soomaaliya inaan magaca subcanta ii keenana mahad celinaya ani ugu yiri Arten Duran ما شاء الله ما قرأتي ولكيس Soomaaliya كريم عبد الجبار سنة ويمد سنة كيه هذا لو مر مو يمد مثال مر ويمد 77 ويمد aniga kula hadlay ana ku soo diray profile ku ka hadlay MBA aniga waxaan kula kulmay Karim Abdi Jabbar African Jan Africa oo aan la socdo ninka la oranayo Masai Joriga Toronto jooga Toronto Raptors ayaa casuumay South Africa ku kulan markuu islaamayo where you from I'm Somali nobody knows Somali one of the best teams in Africa ahead yaa jooga please dib ugu noqo sawirkaasna waa kuu soo galay ninka hal nin ayaa taariikhda Soomaaliya basketball ka hadli kara kelmaddu yiri Fronti Masai Jori waaya oo ah CEO-ga Toronto Raptors uu ku hor yiri Somalia one of the best basketball level ayay ka sarreysay Africa idil Arab horta walaalkiis aniga macaawo maanta waan hadlaya anaan iskale Arab waligeed Iraq nagama badan Algeria Tunisia Morocco you name it Soomaaliya markay arkaan bay cararaya ka waran waa sidee Soomaaliya u qaadi kartaa ciyaarihii jaamacadda Carabta levelkaas Soomaaliya is weydiiso iyo macalinkaas nin xusaayo wasaaradda sports iyo taariikhdeeda ka hadlaysa waa all Arab champion Africa iska dhaaf saddexaadaan bay ahayn صاحب تاريخ ده ولا لو واقيرودي أفريقيا لكن سدحات ما لهن لكن في أفريقيا لكن أيدوان كي سدحات ما لهن هبين كاس هبين وعيد ألجيريا سومالي هاي ستي something like that point يلو كلا ساري 10 هبين كي ورك دلك على شيء إن إسلعة ولا ديل دونه 2 أكلاك إذا ما أركنا مقعش محوها 11:30 2 ألف أكلاك مياماغا منا كده ninkii wariyaha ahaa waa ogeed Masar hadeer Soomaaliya hadeer laba walaalo way haloo socday kulba war caadira aheed oo maarkano magaciisa ma qaranka waaba ka tirsaneedba habeenkaas jabkaas ninkaas aan noo keenay mahane iyo Soomaaliya umba awgeynba national wax ay tahayba marka Masar dhalisay waa loo socnaa Soomaaliya markay dhalisay waa loo socnaa daas habeenkaas aan ku lus gareyno one I think Chelsea personal miya laba Chelsea personal miya ma aan ku lus gareyno labada xab ugu dambeysay xataa Abu Kusina corner ka dhalay ani Ivory Coast aan hoos fadhiyay markaas aan 8 ka baxay Markano Nersi ka soo galay wallahi waxay dhahayeen Somali are they crazy how come ay u club gareynayo ugu sabcina hoostoodan fadhiyay Ivory Coast waa dadka final ka nasuug lahay 100% anaga naga baqayeen Soomaaliya Masar kama baqaynaya oo ayagana heer sareeyeen واوجد نيك 12 oo ka ahay waawgeed waa one of the super oo NBA markan wax la mid la dheeli kariyo oo ahay malayna qalb waa fiirsatay ninkaas waana isla ciyaartana malayna wadanka markuu uu joogo ninkaas nin la mid aan gaar wiligay ma arkin
mfano foreigner kan kala dadkeena kama hadlay marka habeenkaas taa anaga naftirkeena every cost taan isku nimaano I believe it 100% ilaha dhigi karo inaan chance lahayn over 80% Soomaali inay champion qaadi lahayd sanadkaas is the best yahay walaalkiis runta ma kuu sheegaa aniga dadka fadhiyo waraaqda qorayaan ku jiray laacibka intuu baas khalad sameeyo intuu shuu sameeyo ayaan ku jiray ka 13aadaan ahaa 12aan lagu ku xareysneen codka waa gaaban yahay maxamsha codka waa gaaban yahay walaasan ma garatay aniga ana kamid ahaa koode anaana qoray walaalkiis ma taariikhda dib u celinaysaa Soomaaliya illa hadda aan ku leeyahay illa hadda aniga macallin baan ahay waa ku dhex jiraa walaalkiis maamul meel iga dhig ma ciyaartooy Soomaaliya meesha 5 stars ka ahaayeen meel la heli karo meel ay soo mari doonto Soomaaliya ma gaari doonto forget generation kaas anigan kula hadlaa waxaan ka qayb galay seminar ka dhacaya Spain coaching clinic nin ka socday Central Africa William la yiraahdo markuu arkay magacyada la yeerinay coachashka where you from in Somalia microphone ku qaatay Cameroon ana ciyaarayo lixda ciyaartooy u weydiiyay area lixda ciyaartooy u weydiiyay waa African champion ya weer Somalia manol yahay area ma joogaan ciyaartooydaas Soomaaliya geesa la weydiiyay aan ku jawaabay meel kuma ogi ma ogtaa mayo yiri gees ka baxay iska dhig meel Ahmed Haji Nur Raaw halkaas ka dhig Africa Ministry hadda waxaan ka hadlay waa ninka vice president ka hadda u ah Cameroon laakiin Soomaali taariikhdeeda basketball clubyadeedana way dhisnaayeen ciyaartooyna way joogaan group u dhiibay aniga Ali Faarax Siyaad uu nool yahay funaanadaha soo qaybinayo ilkama baxe yaa u dhiibaayo funaanada kalmadu u leeyahay ma taqaanaa calanka ilkama baxe waayo sababta Ali Faarax wuxuu ku soo gaaray gees iyo Ahmed Haji Nur generation kala yimid wuu la ciyaaray wuxuu yiri ilkama baxe mar raba inuu noqdo calankeyga mas'uulka nagala wareega dadka dhageysanaya qaarna way ogyihiin hadalkaas ilkama baxe yoo ahaa ninkaas Ali Faarax Siyaad horseed على فرح اوكي على فرح اوكي ان gabadii soo gaarnay insha Allah ma la soo koobi karo hal axsan aadan kaaga mahad celinaya Somali Sports Legend ina qayb weyn ka qaadatid insha Allah waxaan rajaynaynaa in next week barnaamijkeena waxa ku xusan laba qofood oo basketball player iyo laba qofood oo soccer ah insha Allah kubadda cagta ayagana waa soo bilowdeen وانا soo dhaweynaa Somali Sports ee kamid yihiin maadaama aniga xogaa basketball waxyar aan ku sheegaa magac Soomaaliya magac kubadda koleyga ay gaarsiiyeen kubadda cag meena gaarsiiyeen evana ma dhicin levelka Soomaaliya kubadda koleyga ay gaartay meel ka gaartay ma jirto adduunka meeshay gaartay kubadda cag ma gaarin against I agree aadan kaaga mahad celinaya laakiin aniga maya aniga Soomaaliya marka laga hadlayo inta mar ee Soomaaliya kubadda koleyga magac keentay kubadda cag ma keen absolutely waana mahadsantahay okay su'aasheeda oo maarkano ugu dambayso insha Allah biidnillaahi kariim adigoo noo soo waxayn doontid gabdhaha coachna oo soo noqotay gobolada magaciis muxuu teamkaagan waa ka warqabtay
ilaa ay heer qaran waa la socotay oo maarkano one of the father ahead iyo haddeertaan oo macallin ah u aheedo macallinka qaranka Soomaaliya ugu magac dheeraay haddeertaan inta burburku dhacay iyo qadar waxa ka soobisay waana kaaga mahad celinaynaa macallimiin adoo kale way jiraan inkastoo macallimiinta kullu isku wadintihiin laakiin wax fiican ah soo qabatay iyo nasiib oo markii dambe aad lahayd inaad qaadid laakiin ay dhici weysay laakiin mashaakil male waa one another the best gabar oo ever kusoo marto or the best shooter aan ka hadlaya the best ma ka hadlayo oo gabar kusoo marto the best shooter ever oo gabar am Soomaaliya ha joogto ama teamka hadda wada ha ahaato ama gabar aragta ha ahaato gabadha ugu shootersanad ever sida sheekh camal aan leedahay horta aniga 2011 gabar Soomaaliyeed waxaa jirta Maryan la yiraahdo one of the best la siiyana gabadha ugu sareysa ciyaaraha carabta ka dhacay dad baa ku leeyahay ma ciyaaraha afar team oo meesha yimaadeen waayo teamka ka yimid Lebanon afar ciyaartoy they play high level basketball ciyaarayeen lix xamar laga keenay lix muqdisho laga keenay qurbo joog laga keenay lagu keenay maxaad rajeynaysaa magaca Soomaali gabadhaas keentay iyo gabar ee dhashay Shukri Dalbas iyo gabar ee dhashay gabaramo Soomaalta wada ahayn war shan cabdi dheer gabar u dhalay iyo gabdhihii Soomaali ka yimaadeen lix laakiinse gabdhihii hore marka ay weydiinaysid one of the best shooter garan ku diin shooter aan ku diin Mulki Nur Mude one of the best Somali ciyaartoy oo gabar Soomara gabadhaasna taariikh baan martay oo maanta aan rabaa dadka inaan ka qosisiyo ayadii iyo Shariifa Caddo Raage liide igeeyeen moole igeeyeen dabaalna ma aqaan weligay ma dabaalna moolka markiisa iga doontaan iyo markii iga dhargi aan ka dhargi lahaa mulkii iga soo badbaadisay mas amalena badda ugu socon jirtay dabaashana waa ku sareysay Mulki Nur Mude Shariifa Caddo one of the best Somali ta gabdhihina ahayd wada dhalashadana iyo quality-ga waay maalin wad gabar baad wareysatay maanta Janice-kan aan ka hadlayaa Zahra Socdaal iyo gabadha kaleba aqoona u leeyahay labada could you believe is Nadir Ido gabadha iga dhaaf gabadha national team gabadha Zahra Socdaal ana aqoon u leeyahay just walaaltinimo iyo kubadda kale isku keentay haday gurigeeda siisay ay tir gurigan ku soo deg xamar oo eheladeeda joogan aan gurigeeda deganay ka waran primi isugunta itersan gurigeeda quraacda ii diyaarin jirtay ka waran maxaa isku keenay kalan bahda kubadda kale gabadha kale oo ka hadlaysin one of the best in ahayd ayada ba sheegtay anigana waa daawaday walaalkiis horta taariikhda badan ba meeshan laga heli doonaa ko hay nadiifa ka waran nadiifa one of the best ma garatay aniga gabdhahaygii Soomaalitaan Zahar Gurey jirtay gabdho badan hadaan dad Miski Umar Ismaaciil iyo malatin walaalkiis runta ma ku sheega gabdhaha dib hay celin okay the best player oo gabdho waa ii sheegtay marka waxaan rabaa the best player man Somali Somari the best player like Michael Jordan la dhahayo the best player ama shooting ha ku qaado ama sikal ha ku qaado ama karta ha ku qaado ama center ha ku qaado it doesn't matter what position the best player in basketball history adiga aa leedahay fikirkaaga dad badan waxay sheegaan laakiin muku hor dhacay ka damba markaa sheegtid ayaan ka dhegeysan runta ma ku sheegay ani geesa ay horay Axmed Xaaji Nuur inkasto Jenya runta ku sheegay ani Jenya la matuso I don't like the Jenya garatay laakiin Jenya anuna isoo kori labada basketball-ka degmada hodan gacanta nagu qabtay waa labadaas qofood ninka Charles oo hadda marka guess waxa leedahay the best player ever Somali aniga isoo maray da'dii age-ka aniga aan daawaday kuwa yar dad age-ga geenaysidna tuuri hadii la dhahayna sheekhan siistay aniga tuuri
كم هذا best player Somali 75 iyo 74 markaa soo fiirsatay aad soo ciyaartay ilaa 80 ilaa 85 aad soo ciyaartay. I'm not talking about shooter, I'm talking about the best player ever Somali soo maro. geesaan wataa aniga bes ruux kale ma wato waa dhamaatay. ninkaas marka maxaa ku xasuustaa adoo soo koobaysid? maxaan ku xasuusataa shanta jayn lagu sheegaba ninka maamulo u ahay miya? dhegeys Soomaalita oo taagan oo Tarzan uu joogo ay joogaan Asad ninkaas qolada qura oo la challenge gareyn jirtay barisamaadkii Soomaalita bay ahayd bes iyo Manishibi saddexdoodaas meesha rabtigay Soomaaliya basketballkooda wuxuu ku horumaray saddexdaas club waa saaxiib magaca aad maqlaysid taariikhda sheegaysid aadan kaaga mahad celinayaa horta hore. intaadan soo koobin waxaan rabi lahaa ogaaska uu ku dhageysanayay aya ogaas maxaa ku dari lahayd maanta ina u hambaliyeysid walaalka legend of the legend oo aad isla soo qariibteen maarkino maasha Allah bal maxaa ninkan ugu dari lahayd walaalka uu soo dhaweyn lahayd asagana ha u noqoto historygiisa asagana wuu noo soo gabagabeynaya insha Allah. ogaas mi maqlaysaa? muudo kale umaleyna marka insha Allah noo soo gabagabay hadduu Ilaahay raali ka dhigo. basketball okay waxaan ku dinaan intii dambe oo la soo maray oo 2000kii wixii ka dambe ciyaartooy badan arki jirtay ama lagu keeno qadar ama Mareykan maalinka Mareykan Orowe iyo Toronto Mareykan aad deganaan jirtay labadaba. nin waxaa la tilmaamaa Faisal la dhahayo aan aniga wili ma arkin ninkaas waa gurubyada iga dambeeyay waaye ama dad kale whatever it is. nin Soomaaliya soo maray oo Mareykan 2000 wixii ka dambeeyay oo the best player alada dhinac kale ha ka dheelay it doesn't matter. I'm not talking about his Mareykan behaviorkiisa iyo wixiisa kama hadlay laakiin Faisal la sheegaan ilaa aniga ma arkin. marka adi ahaantaada nin ku soo maray ama aragtay ilaan macallin waa tahay bal anoo tilmaami karta ma jira? horta Faisal taariikhda xustay Afrika ninka ugu score badan waa meesha ku jira nobody can stop it man. aniga teamkaygu yimid qadar nasiib darro Talyaanigu tagay ninkan one of the talent inuu Soomaali magaceedana kor u qaadi karo warxmad tashiilka iyo meelaha ku haayo discipline malaha iyo balaayadaas ana waxba igama qosayso. He is one of Somali nin ka ciyaara NBA-da TV-ga ku wadi jira iyagoo wada hadlayaan oo teamku uu jaamacadda ciyaari jiray. horta xaasidka Allah ka qabto wax kale ma dhahayo. Secondly ninkaas amiin ninkaas waa nin talent waa nin Soomaaliyeed waa nin levelkaas gaaray waxa Qur'aan Soomaali halkan aan ugu diraayo Soomaali meeshay rabto kubadda koleyga way gaari doontaa waana gaareynaa wax kale ma dhahayo. dad khibrado badan u lehna waa haysanaa maanta. Soomaaliyana halkii Afrika ka ahayd ku soo noqon doontaa iyo Carab qurbahana dad badan. okay aadan kaaga mahad celinayaa. macallimiin badan ku soo hortay duraan marka laga bixiyo I believe so macallinkiina oo weynaa oo wax badan idin soo faaday macallimiinta Soomaaliga. who was the best Somali oo qaran macallin ahaan ku soo maray adiga ama the best coach it doesn't matter hadduu team soo maro ama hadduu qaran soo maro the best coach adiga ahaantaada. waana final ugu dambeeyay su'aal waaye kadib aan noo soo calculate gareynay waa ka bixinaa insha Allah. marka dhirki karnaa oo maleynaa marka historyga qaybta aad ku leedahay ama aad nala share gareyn kartid. macallimiinta macallinkii soo maray aniga halkan ugu mahad celinayo levelkayga iyo kartideyda Allah yarxamo horta waa iga hooseeya waa engineerkii Andriana waa engineerkaas Soomaalita anay keenay waa ninka aniga waxaan levelkan gaarsiinayay. codkaaga xogaa ku dar codkaaga. ninka meeshaas gaarsiiyay waa asaga koode
معنا سومالية ده أنا كان كان ولا بحي الصومالي على هذا كوتش في الصومالي Somali best coach best coaches أنا كيسوم أن كرنايو أنا كان كفر حسنايو ما أنت أحمد عرب واي كأنا إسوم مرينا عبد اللطيف وها he's best coach أنا كإسوم مري national team أن كان لا يا كعنتنا أنا يقول قبت أهم عرب يعني كاس مس عبد اللطيف عبد اللطيف he's one of the كبد كوليجا أنا أفهم سنابه ما فهمت معلن أقون كله واي كبد كوليجا هذا نحن كنا ليهاي مقالة نيروبي أنا جو كي ودوي أركي مركا أنا معلن ناشونال تيم كي كاشيري معلن ما أدان كسي ما يعرف معلن هديلك حد صومالينا أنت معلمين تا مركا شيء كده دوا وودنا يا صاحب معلمين منافسين وكرتي decision maker أبو كرشينا معلم وين روح الربا سير ربانا واركان من دحجير كبت كليا عدكا كروقات حقا معلم وناكسن حواي أبو كرشينا أنت أنا هذا دقالة ميسا أنا جاي بشر فوكس عمر بارجب بالكور صدح ده أنا كلا ودنا أنا جاي عمر بارجب شيخي صدح دل كلا ودنا كور أنا يوكي ودا Soomaaliya uu la socdo ninkii la dhahay sheekha iyo ninkii Umar Baarajaba Uganda la socdo bal ka war saddex macallimiin wala sheego oo Egypt aan ku kulanay ka war aniga gabdho iyo wiilalaan watay gabdhahana saddexaadaan keenay ma garatay wiilashana afraad ay ahaayeen bal ka war aqoontaas waa nagu jirtaa saaxiib Soomaaliyana waxay ahayd qofka teamka ugu liitay oo ahaa saddexda qofood ay kala wadateen mise ma garatay marka maamul hadii la dhahayna maamul aqoon waa u leenahay waxaan noolaa ilaahay caafimaadka Allah u ziyaadiyo nin aad u qiimo badan Maxamed Geeti Santuur oo Uganda magacaas iyo sumcadaas u keenay asaga u keenay Uganda magaca iyo sumcada ay leedahay kubadda kolayga Maxamed Geeti Santuura u keenay ما شاء الله وبين الشيء وحنا وعدي ويري قرب استاجا بشير فوكسي عمر بارجب ما قرأت أقوت بالك مركب ولا الكيس كبت كل يجنا ليفل كاسان جاري كرنا ما قرأت هي ما أنت أقونتي ويتالا أنيجا ملك سانكشيجي أبو كرشيني أدوك بتفرد كعنت الله سوقله he's one of the basic coaches أنا قلنا ونكسرها أنا كنا ما أمانة ما أبو كرشينة he's good coach master planning كانوا كوفي عنها training أبو كر وقت بدنا كلام قلنا هاي ما قرأت أنا إنكستو أنا شاهدو أنت أنكب حاجة national team قدر كين national team academic عن فرتي أدو قرب كي سو استاج أبو كرشينة I'm one of the best coaches عالم كان نقول كره يرون أنا أبو كرشينة نك وحنا وذا بري وأرتن دوران ولكن وادير هذا غير إجلسي عربي أفريقيا نجمع سريان أقونتي واحد سنة ويلل إيجابنا تاريخ دنا ملك استوائنا سيودا وأكون مهد علينا يا وأكون فرح سنة هاي ما أنت ولكن عبد الرزاق بهالك أسانك تدبدن بامقان عبد حلوة ننقاد قيمة بدن واي تدبدنا إلهي نقدي ولكن سكبت كوليجا سومالي وإنه تشتاع أنا قبل ده وحجر السند إلهي كان last 20 years اسكسيلة كسعوتين دادكيني أو لجن كأهاي وسيبا معلمين تينا أهاي اسكسية كسعوتين إنها وضعت شتين هذيك أبو كرشين مذوبة أحمد داهر ومعركة المقعد شيخة بارجب بشير فوكس أنت أو حتى involving last 20 years وقدي أنتينا تيهين أما قبلها نقطة مويلة نقطة ما هليل ويسين وروحان سيستم كوانجا قلدين يهينه before 6 months ميل أنسو كأنه
no matter حتى even America looma baahna haddii 6 months Soomaaliya lagu heli karo anybody who's willing to come ila dadkii iskuulay wada leeyihiin high school wada dhigtaan jaamacaday dhigtaan waa adag tahay laakiin dadkii Soomaaliya naftirkeeda haddii 6 months maalibuuradooda iyo caafimaadkooda iyo masaajidooda iyo fiskalkooda conditionkooda la dhiso I'm sure sida idinka ahaadeen iyo ka badana laga soo saari karaa maxaa diiday inay intaas dhacdo san ilaahay kan la dhaho sheekha macna awadiyo ilmi waa laga soo badiyay عم بارجع وذيو ولا جسوب بدي أحمد داهر وذيو وطب سومالي ما أنت هذا واحد أنا بقول قاري لهين لكن محي وقاري ويس مكتة شتين مكة هذا شين مكة مناقشة يصير مش السيد لو ده حتى لو قدام بس last minute شيء نين كتكنيكيشن بدن أما نكون حسن كفيشن ده أما ذاتك هو قبلنا معنا الأسواق هاي أسرع مركنا الليدر وحوها بدوها ما أنتوا حكم مقامنا لكن قف حتى ما أنت لو كاني وبرين جيم درسيل وده ريسيستنت تجيس آذن أوجن تريننج كيس آذن أوجن مقعش معاه دفاع آذن أوجن أسيستنت تجيس آذن أوجن you know وكانت مركا إن مكتشتين أو ويلنا مسجد اللي كنت لجرتين سنة كان هذا على صوت في سنة كده محاكت لجرتين in the future محا أنت أكون هذا كاجا ولا هذا سو كويس ولا كده رتوا ما سنتاي غير هذا أنا يدبي يقول على ساور ترى وكفر حسن هاي لا أقونت ونسي كنت مركان كل شيء فكرت أو بشري فكس كجرته أما أحمد داهر أحمد كجرته أما عمر بارجب كجرته أما أبو كرشين كجرته أما أني وجرته ووح أنكسر رين تك أتكال ليس صح ويان كيمستري جيمز كمركل وجو شيء جايو وإنهم معلنك ماكسيمون صدح بلود أفر بلود وكعنتكو هاي أنا جو كله هذا كلامي كان هذا كل أيام إيشان can you believe الصومالي كم بجرب ما نكسر قيد قلا يعني مركي كواركان قال دين anyway تاريخ هذا وحير أنا لو مرة حمرتي كو سيمينار كبحي عمر بارج بوتجي شيخ نوتجي دريم كاس شنو قاعد نواتجي شنو قاعد نوتجي هذا أنا جا ما أنت واي كذا باجي سي ماذا من هذا دو كي يمد سنة كور نواتجي ما هذا حرسينا فكرة أسر رئيسة لكن سي ولكن سنقولي خبزتي اللي رادنا نكسر عرورات ملوش كلام ننعى نقول ذكر ما قرأت هذا كلمة عن ربعنا وحير كتير كوحشي أنغولا ما قاعد لهذا عيارتو دودي يبدي شرطو لما دب قصون أخذ الكودا يجانا ما قاعد سكارسي وكوي أنغولا قربها جوجا كوشش كان نقدين كو مصر هذا أنت معلمين مصر إيجبتك كل وقرب جوج معلمين كأهاينا دب قصون أخذين الكود معلم كناشيونال تيم كإيجبت هذا وذا إماراتك وأنت سنة كشقينا عمر بارج بن يقانا بشر بقسم يقانا أنيقا دد بدن بان ربا إنا ماشي كحس أحمد داهر أقونت وهاي كبت كل جنون وهاي مال ما قرتي معلمين تي هورشينك وهادو دد كي أقونت وأنا وجرتها يس وخلدنا يس تنتنا كأيجنا يس نقولي أنا نقولي راعت ما مقصد تاسم باس كنا قدر قرة ناشونال تيم بان كوتش كها ناشونال تيم بو كوتش كنا قدي نكلا ده بيشر فوكس وحم مقع أسوأ يصدق صومالية دواي وياسين سعيد كوسار يقدر الحاصل شيء كذا ينكو سو دارن يمن كاسنا صومال wiilal yaroo taalanka sida Faisal oo kale iyo jaamacadahaasna waa la heli karaa laakiinse adduunkan raacanay ma garatay adduunkan raacanay laakiin maanta aniga magac Soomaaliyeed diyaaran u ahay wasaaradda sportska iskaygeeda xiriirka kubadda kolayga Soomaaliya diyaaran u ahay waana rabnaa inaan wada tashano la isku yimaado hadda Cabdi Xalwo soo ma jooga Mareykanka aqoon fiican uu qabaa sababta uu ka ciyaaray fikrad baa ku jirta fikradaas ilaahay naga dhigay dadkii fahma ma garatay dadkii fahma Allah naga dhigo sheekadana waa dheereenay magaca subcadda Soomaaliya iyo taariikhdeedaba way imaanaysaa aniga waxaan aaminsanahay
Soomaaliya kubadda koleygeeda in kor loo qaadi karo lana horumarin karo laakiinse last minute 2 weeks chemistry-gooda iyagoo fiicneen inay isla ciyaaraan hadda nimankan Kenya national team ka dhan waa nimankaanin waday laakiinse macalinka yimid xataa macalin wixiisa diyaar u ahaayeen buu ahaa laakiin ninka walaalka sheekha iyo macalimiintii la shaqeynaaye last minute inay chemistry-gooda islama qabsan karaan marka managementiga in la hagaajiyo garabna la isa siiyo waa loo baahan yahay marka waa ku mahadsantaa wareysigaada aniga ma hadli karo macalimiinta ku dhex jiraan ahay noloshayda khubisteeda basketball iga galay inta kale kaga jirana dee hadda aniga waa ka imid anaa wax krigeeraystay waan dhisanahay waxbaan sii bartaa weli jaamacaddaas Alberta University joogaa academigan leeyahay walaalkiis Soomaaliya dadkaas way joogaan waana la gaari karaa taariikh hadduu Ilaahay raali ka dhigo waana ku mahadsantaa walaalkay wareysigaada halana raadiyo dadka taariikhda runtii ka sheegi lahaa aniga wixii khalad iga dhacay khalad buu iga dhacay wixii wanaag iga dhacayna aniga rabbigayga waaye marka waa ku mahadsantahay Soomaaliya gabdhana saasaa jooga macalimiin noqon kara managementigana waa samayn karnaa macalimiintaasna waa isku imaan karnaa waxaan jeclaan lahaa saad ka dhawaajisayba inteena wad gacmaha ishaysano oo nin kastaba ninka kale fikradiisa dhegaysanaya inaan magacaas Soomaaliya dib u soo celino ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo waana ku mahadsantahay assalaamu calaykum before intaadan ka bixin waxaa la isla soo qaaday dadkii walaacay ninkii maxamed aadi xirsi madoobe shiiqa oday axmed bile iyo dad odayaal oo lamid ah magaciisu waxaa la isla soo qaaday war waxaan leeyahay sportiga dhanaa laga hadlay maxaa diidaya la sportiga inaan annaga siyaasadda ka qayb galno wasaaradda sportiga bal at least xataa nagula sharfo maxaa diidaya oo aan backup iskaga noqonay oon maarkino siyaasadda ugu qaybgali waanay arrintaasaa laga dhawaajiyey waxaa la soo helay dad badan oo sportiga ka mid ahaa ilaa heer wasiir gaareen Saciid Qorsheela ka mid ah ducaala ka mid ah magaciisu maxaa ka mid ah magaciisu muxuu ahaa sidaasoo kale baarlamaanka ku jira taasana ku jira baarlamaanka oo geedka oo safiir ee maanta marka maxaa diidaya la inaan siyaasadda ka qayb galno oo aan maarkano magaciisu muxuu ahaa wasaaradda sportiga bal haddii xataa 0.5 ee xataa 0.5 aan noogu jiro sportiga oo legend oo magac leh oo sharaf leh oo aqoon leh oo maanta ka bixi karo marka arintaas maxay kula marka waxaan soo leeyahay Yaasiin Maxi wiilka macalinka uu ahayd oo aad taqaanay oo maasha Allah duqmaaxi aabiisna macna asagana ku ahaa 16 sano ayuu wuxuu ku jiray siyaasadda bal maxaa dhihi lahayd taas inaad soo dhawaysid oo sportiga isqabsadaan oo maanta siyaasadda ka qayb galaan oo maanta fadhiga laga kaco ma aaminsan tahay mise sportiga la iska joogayna meeshiisaan joogayna ma rabno siyaasadda iyo waxaas dad aaminsanaa jiro adin maxay kula tahay maadaama aqoon-yahana aad tahay maantana sportiga la socdo wallahi aniga waa aaminsanahay inaan siyaasadda ka qayb qaadano Yaasiin Maxna abiis aqoon asagana waa ninaan jeclahay xamarna waa kula kulmay waa nin active waa in xaqna aan soo saaran karno maxamed aadi xirsi waan dhageystay wixiisa waa ninaan jeclahay waa run in aan 0.5 kala sheegay ama 0.6 kala sheegay mid aan ku yeelano wax qasab ma garatay la isku dhiirigeliyo laga qayb galo la isku sharaxana waa qaabilsanahay aniga absolutely waa aaminsanahay taas si aan waxaan leenahay aqoonta aan leenahay aan shacabkeena ka qayb qaadano aniga Yaasiin Maax waa nin active ah aad iyo aadna waan u jeclahay maxamed aadi xirsina wuu tagay Soomaaliya waa iga lagu dheer yahay inkastoo aanba 2 mar tagay ma garatay hadda dadkaas tilmaamaysiina siyaasado badan Saciid Qorsheele oo kale waxaa jooga Cali Cusmaan oo kale gruubo badan baa jooga hadda asadaa jooga dhuxulo baa jooga ninkan yarkan iskale ilaahay khair Allah siiyo nin aan jeclahay ah guray oo hotelka Maka Mukarrama leh oo nin sports ah
oo nin aan maanta Soomaalida ku nool qurbaha meesha iyo fikradaha nin wax kastoo dhaca waa ninka albaabka u fura businesskiisa nin sports kastoo magaalada yimaadana daha welcome kusoo dhawow magaalada oo aniga aan ka mid ah siyaasadda inaan ka qayb qaadano diyaar waa inaan u noqonaa isku diyaarinaa sidaan uga qayb geli lahayn inta qofooda noo dhihi karnana waa dagaalami karaana la garab istaago ani waa ku raacsana kuma maqlo wuxuu ahaa Somali Sport legend maanta soo gashay legend of the legend waa nin tuuray ah waaye oo tuuray loo yaqaano Brunigaas qabsa tuur ninka la dhahay waaye marka Maxamed Sheekh qofooda iga sareysa ما شاء الله adiga agan joognaa dhageysa Cabdiqaadir Jaamac sheekha aniga Nuruddin Cadsa laftigiisa waa tuura inuu ku sir Axmed Xaaji oo idinka horeeyay Axmed Xaaji tuurayaal la wada dheh marka sheekada ku socda okay bas ma sha Allah marka aan kaaga mahad celinayaa Maxamed Sheekh Muuse walaalkeen holo xasana loo yaqaano oo Canada ku nool Westiga maleenahay ilaahay ku xafido adigii familkaaga historygan hadda maanta lagu soo koobi karo intii aan anigana aqoonteeda ahay su'aalahayga waa weydiiyay marka insha Allah next week waa la filayaa ilaahay raali ka dhigay last week dhexdeeda waxaan wareysanay Isaaq Nuur Jiilayan wareysanay Allah xafido asagana siyaaro ku nool Mareykanka Isaaq dheer oo taqaanin asagana caawal Suudaaniya hadii ilaahay raali ka dhigo wabillahi tawfiiq waxaad ku darsanaysa miyaa jiro excellency legend may waxaan leeyahay dadkii maxaad ugu baqaysaa marka waxa u baaqay waa iloween ninkii Yaasiin maxaa baqaysaa maadaama hoggaanka siyaasadda sport asiga yahay la garab istaago Yaasiin maahan garab istaagno intii rabta inay ka qayb qaadato idil Yaasiin ma waa win active waa nin aqoon u leh waa nin siyaasadda wax ka fahamsan waa nin aad u qiimo badan oo aniga xamar asagoo boorsada wato lugeenayo shakhsi aan dhinacna garab ka haysan jeclaa inuu dhalinyarada youthka uu wax u qabto Yaasiin ma in la garab istaagay intii rabtaba tan kale aan kusoo gabagabeynayo aniga shakhsiyan kubad kolay aan wax ku noqday wax ku ahay qabiilkayga waa basketball qabiil kale ma lihi ma garateen aniga wixii karaankayga iyo kartideyda iyo aqoonteydana diyaaraan Soomaaliya u ahay inta jecel nabadda kubadda koleygana diyaar baan u ahay dhibna ma haysto aan isgarab istaagno magaca iyo sumcadna waan soo celin karnaa Soomaaliya kubadda koleyga Soomaaliya meesha ka gaartay kubadda koleyga waa la og yahay magacaas aan kor u soo qaadno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما علننا مر لبعض ما سدحت آد يا ذن كاغ ما علننا لما إمد الصوماليات ملول بيجوكتو كارهان سبورت كارهان باسكتبول وحيدي لنا هاي إسقرب صدا ولا لا تين إله با ولا لذين كديجي هل موجود أيام وذا سعرنا هاي بليز قرن كدنبو هلو تبا بشوستو minimum سيدو معنا كدواجي 4 months to 6 months وبهاي هاي انت available meelaha la suugay macallin kastana uu u qalma macallin sheekh ugu dambeeyay macallimiinta ka horeysay inta la mid waxaan la siiyo meel la suugay accommodation koodana meel la saar maalabuuradooda iyo masaajidooda iyo caafimaadkooda iyo meesha ay jiifan lahaayeen inshallah intaas iyo inta ayaan rajaynaynaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wa alaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuh